السلام عليكم سوري وهذا مقالك gaaban waxaan rabaa inaan ku sharaxo 8 qodob oo ka saacidaya shirkadda aad maal gashanaysid ee online ku shaqeynaysa inaad ku ogaato shirkadaas inay tahay shirkad real ah oo la maal gashan karo oo aan ku scam garaynin kamdooyinku dambeeyay waxa soo baxay shirkado badan oo Soomaalida ay maal gashanayso oo mid walba marka dhowr bilood ay jirto Soomaalida scam garaysay marka 8 qodob waxay ka caawinayaan inaad lacagtaada aad gashatid meel aad hubtid oo faa'iido ku soo saaraysa lagu scam garayn karin كاستيدن قضب مدوين كود دمبي أيان شركتها كويجي شركتها كواليتش كاه هي كويس كام كاه واستيد قضب وصيف عن وشغلي كان شركتها ويجوه يعني برسنتج في عن قضب بدأ استيد أهم كانوا يجوم زول باي برسنتج في عن كهيسته سيب بقولي أهم حسابنا كان برسنتج في عن مركب زول بكهيسته عن برسنتج سكولة جينو وحي كسر ريا 80 وحي كسر ريا شركتها بقول والسؤال لين كراه وحي 70 إلى 80 ودحيانا وشركات ريسكيد وأنا ريسك فري لكن أنا هاي لكن ريسك وجرو مركا واحد كشن كرتا مال كاجا وحي عاد كم مرمسي ده كشن كرتا هدي برسنتج خصوصا بحا وهاي 50 إلى 70 أنت ولا حيسة وشركات 50 مركا ريسكيد وبدني هاي ريسكيد يفايد وسليجين هذا المال قشري سنة وين العقد كمان مكرتين المال قشتين هذا سكدين كرتين نسبة كونا في تادو كوس هيو برسنتج قاعد حسابي سيد ومركز قضبضنا لك عشتي وسكدين كرتها شركة داس أو وشركة مقرانسها ريسكية والعقد هاد قشتين مدق عمل أكاع خسارة كرتو قضبضنا هدية إنه صرف فيرينه مركز كوباد أنا جوا حنو أجا شركة مركز ليس وبندقه قدوم كوالان وياك وحوي تيمكا أما عدة مدح كاه كميني مركا وحن باريتام مقصيص ميا شركتها قاربة شراء أنا قف مدح كاه هني أنا وشرين شركتها أسقرا واحد سيا برسنتيج كا وحي 50 كوسيا ما دام أنا قف تدك كدم بيا أما اللي هي أنا ماشى كحسنين شركتها هدية قف أي ماشى كحستا ما دور قف أي ماشى كحستا تدك سام بارت كوسيس مينا وحن بوقنا ميلها وسوشيال ميديا وكله هي قالها تويتر كا يهال كان لو يقانو لينكدين ويدنا تدك بروفيشنال كاي شقooyinka soo qabteen ay ku bandhigaan marka linkedin kan oo kale been laga sheegi karo oo qofka ku soo qorta CV-giisa oo dhameystiran ku soo qorta marka qofku inuu taaleeyahayna wad eegaysa soo kale Twitter-ka oo meelaha iyadana aan qofkan fake waxa CV fake aan ku soo qoran karin isagana wad soo eegaysa magaciisa qofku baaraysa qofkan shirkaddan madaxda ka ah ama leh ama maamulkeeda ka tirsan marka dad labadaaba ka soo heshid wadada ku taxanna fikradooda iyo bunyanka ay ka bixinayaan aad soo eegtid aad soo akhrido ay ku cadaato qofaas oo qof la aamini karo maadaama CV-giisa meesha ku cad yahay percentage-ka aad siin doontid maadaama followerskiisa iyo dad ku taxan iyo sida looga falceliyo qoraalada soo qoro waxaas oo dhan baad sii eegaysaa kadibna waxaad siinaysaa haddii uu mar social media aad heshay waxaad siinaysaa 50 to 90 inta u dhaxaysa ama 100 inta u dhaxaysa siin kartaa marka qofkaasi isaga saasaad ku eegaysaa waa maamulka sare ee shirkadda marka koowaad shirkadda maamulkeeda markaas ka soo hubisid qodobka labaad aad u eegi doontid waxa weeye sharci ama aqoonsi ma ka haystaan waddanka ay ka jiraan marka shirkadda waad sii baaraysaa oo sharciyada qaar baa jira fake ah oo la samaysto marka markasta waxaad iska sii hubinaysaa sharcigan inuu sharci yahay sax ah oo shirkaddaasi ay ka qaadatay waddanka ay ka jirto mar haddii aad sharciga ka heshid sharci ay ku tusaan haddii sharci ku siin waayaan de ku tusi waayaan sharcigooda waxa samayn kartaa 50 wixii ka hooseeya siinaysa marka iyada la isku mahadin karaad oran kartaa laakiin haddii ay sharci ku siiyaan sharcigana sii baadhid oo sax kula muuqato 50 wixii ka sareeya 50% wixii ka sareeya ayaa siinaysaa oo percentage ah qodobkaasina waa qodobka saddexaad ee aan u eegno waxa weeye location-ka ama headquarter-ka company-ga xafiis physical ah oo garanaysa la booqan karo inuu ku leeyahay waddanka ama magaalada uu ka jiro marka badanka waa la arki karaa oo shirkaddu haddii ay xafiis physical ku leedahay address-ka meesha ku soo qortaa magaalada ama waddanka xafiiska meesha gaarka ah ee ka leedahay ayaa la sii baaraa kadibna waad helaysaa inay xafiis physical leedahay laakiin haddaanay shirkaddu xafiis physical lahayn ama aanay website-kooda ku soo bandhigin waa riski waad iska ilaalin kartaa dad qof dee isqarinaya ama dad isqarinayo oo rabo haddii aad dhito ay scam sameeyaan meelna loogu soo hagaagin ayaa badanka sameeysta marka dad xafiis physical ah ka weydid 50 wixii ka hooseeya ayaad siinaysaa percentage-ka marka isagana waad iska ilaalinaysaa qodobka afraad ee aan soo qaadano waxa weeye
waxa ay ka shaqeeyaan ama asset kale ka soo saaraan waa qodobka ugu muhiimsan oo lacagtan adigu aad maal gashanaysid iyagoo halkee ku bixinayaan oo faa'iido ka soo saarayaan marka wixii ay kuu sheegaan ama bot ha ahaado ama shirkadda arbitrage-ka ha ahaato shirkadda arbitrage-ka ka shaqeeya lacagaha iyo coinska cryptocurrency bedbedela ama ha ahaadaan meelo kale investment ku sameeyaan faa'iido ka soo baxdana kala qaybsateen marka waxaad eegaysaa markasta mashruucoodu inuu magaranaysa mashruuc sax ah uu yahay oo dhaqaale soo saari kara laakiin haday ka qariyaan mashruuca oo yiraahdaan faa'iido inta lagu baan ku siinaynaa oo lacagtada anaga ku maalgelinayna iska ilaali qodobka inay ku dhaceen saas ku ogaanaysa sidoo kale waxaad ka sii ilaalin kartaa mashruucoodu inuu yahay mashruuc xalaal ah ama mid xaraam ah marka waxaa jira shirkadaha qaar ku shaqeeya meelaha aan loo baahnayn maalgelin ku sameeya ama coins xaaraana gata oo coinsyada qaarka shiba in coinka loo yaqaano oo kale mukhadaraadka iyo waxyaabahaas ayuu ku tacalluqaa marka haddii maal gelinayaan kuwaas oo kale waa iska ilaalinaysaa maadaama ummad muslimna nahay inuu xalaal yahay waa iska hubinaysaa mashruuca lacagtaadii adigu waa lacagtaadii halkii la gelinayay faa'iidada lagaga soo saarayay inay meel xalaal tahay iska soo hubinaysaa sidoo kale waxaad sii odoroosi kartaa ama aad sii saadaalin kartaa mustaqbalka dhaqaale ee shirkadani inuu sii jiri doono ama mashruucan laftiisu inuu yahay mashruuc sii jiri kara oo tusaale ahaan shirkadaha arbitrage-ka ee coinska kala bedela haddii ay shirkadda aad kusoo qaracday inay legit tahay oo ay sax tahay oo sharci leedahay oo dadkeeda qodobada horena aad soo saxday oo shirkad sii jiri karta weeyaan hadday shirkaddu bot ay ka shaqaynayso oo bot wax tariir garanayo yahay isagana waa 50-50 oo suuqa marba crash ku dhici kara suuqyada online-ka marka isagana inaad ku qanacdo baad eegaysaa qodobkaana wixii 50 ka sareeya waad ku qanci kartaa adiga markaas sii baaraya oo go'aan kale qodobka shanaad waxa uu leeyahay habka website-koodu u dhisan yahay marka website-ka shirkadda markaad booqatid hadduu yahay website si fiican looga shaqeeyay oo quality oo waqti la geliyay oo lacag la geliyay oo dhaqaale la geliyay waxa weeye website u qalma in ay shaqo ku bixiyeen oo shirkadda yeelatay laakiin haddii yahay website yar oo imika la aasaasay beri dhow ama shirkad hore oo scam ahayd laga soo minguuriyo magacii lagu soo bedelay ama waqti badan lagu bixin iyadana waad arki kartaa sida shirkaddan imika CodePS oo kale berigii dhaweyd aan ka digaynay imika waa shirkad scam ah dad badan bay dhacday marka website-kooda imika waa kuwa bedelay berigii dambe ay ogaadeen in website-kooda laga hadlay oo dadka YouTuberiska badan iyo dadka ka hadlay website-kooda website daciif ah ahaa inaguna waan ka hadlay website YouTube-ka waad ka soo daawan kartaa YouTube-keena waad ka soo daawan kartaa video-ga aan kaga digaynay in aan la maal gashan marka website-koodii hore wuxuu ahaa website aan si fiican looga shaqeynin oo ku tusaya in uu macmal iska ahaa sidoo kale waxaad ka eegi kartaa shirkaddan website-koodan domain-koodan ayaad qaadan kartaa marka website-dada laga eego domainada bixiya ayaad la tegi kartaa kadibna iyagaad ku click gareyn kartaa wuxuu ku sheegayaa xilliga la diiwaan geliyay website-kan marka waxaad arki kartaa shirkadaha isbedbedela ee scam-ka ah inay magaca soo bedesheen markii hore iyo in kale marka iyadana si gaar ah uga soo hadli doonaa insha Allah soo loo baaro isagana waa iska sii humin kartaa marka waa muhiim qodobkan website-ku aad iyo aad muhiim yahay qodobka lixaad social media akoonada ay ku leeyihiin shirkaddu ayaad baaritaan ku sameynaysaa marka LinkedIn-ka iyo Twitter-ka iyo Discord-ka iyo Telegram, YouTube waxaasoo dhan baad fiirinaysaa dadku fikradaha ay ka dhiibtaan ayaad baaraysaa sidoo kale waxaad eegaysaa website-kan loo yaqaano Trustpilot oo shirkadaha lagu qiimeeyo oo dadka shirkadaha la soo macaamilay ay fikradooda hadhow talo xaq hoose ku qoraan marka qof haddii la soo scam gareeyo ama shirkaddan wax weyn ka hayo Trustpilot ku tagayaa 5 star-ka ayuu 1 star siinayaa ama wax ka hooseysa kadibna halkaas ku qoraya wixii shirkaddan kala kulmay marka wixii negative oo dhan lama dhigi gareyn karo oo website madax bannaan oo Trustpilot la yaqaano oo shirkadaha lagu qiimeeyo marka isagana waad soo baari kartaa shirkaddu haddii ay haysato 4 stars ama 5 stars ay haysato waa shirkad aan oran karno waa la isku hadlayn karaa Trustpilot-kuna waa soo eegaysaa sidoo kale YouTube-kooda oo kale haddii ay commentiyada ay xidhaan oo kale farba ku godan marka waa iska ilaalin kartaa Telegram-kooda haddaan public ahayn Discord-kooda kale haddii aan qaybta chatting aan wax lagu soo qori karin Twitter-kooda haddaan aan fikrad laga dhiiban karin LinkedIn-kooda oo kale haddii aanay CV-goodu aanu la isku hadlayn karaa aanu ahayn waxaasoo dhan waa soo eegaysaa haddii commentiyada iyo dadka fikradooda ay badanka xidhaan shirkadda farba ku gudan waa iska ilaalinaysaa insha Allah qodobka toddobaad waxaan oran karnaa waxa weeye companies kale ay partners kale yihiin marka company-ga
waxaa jira kambaniyo kale oo ay wada shaqayn leeyihiin ama wada shaqayn ka dhaxayso ama saamiyo ku leh marka shirkadaha badanka xagga ugu hoose kusoo qoraan website-kooda adiguna baaritaan waad ku samayn kartaa kadibna shirkadaha ay xagga hoose kusoo qoraan oo kale ayaad la xiriiri kartaa iminka shirkadan COTBS iminka inay scam tahay wayna ogaanay marka iyadu shirkadaha kale biri horaagan kusoo qori kartaa Binance ay kamid ahayd marka shirkadaha laftooda haddaad la sii xiriiri kartid oo weydiin kartid shirkadan ay wada shaqayn wada leeyihiin way ku jawaabayaan oo qaybta live chat-kooda ama meelaha lagala xiriiro ayaad kala hadlaysaa kadibna way ku sheegayaan in ay wada xiriir ama wada shaqayn ay leeyihiin kaasina waa iska soo hubinaysaa haddii shirkadaha wada xiriir kale leeyihiin shirkado sumcad leh sida Binance oo kale shirkadaha ay magaranaysa wada shaqaynta leeyihiin shirkada Binance waa shirkad sumcad weyn aad u leh oo aan wixii scam aan iyadu maal gelin ama aan soo dhiiri gelin haday wada xiriir leeyihiin oo kale aad bal isugu halayn karaa haddii ay yiraahdaan xiriir ma leeyihiin iyadana waxa ku cadaanaysa in shirkada ama company-gani uu yahay mid fake qodobka kale percentage-ka ay u soo celiyaan investors-ka dadka maal gashaday faa'iidada ay u soo celiyaan si daily ama monthly way ku kala duwan yihiin marka haddii weligaas ka ilaali haddii percentage kala soo celinaya uu daily yahay daily ha ahaadee laakiin badan yahay hadduu 2% ay ka badnaado waa magaranaysa shirkad rabtay inay si degdeg ah intay dad badan ku hesho ay waxay ku soo jiidanaysaa lacagta ay soo celinaysa badan percentage-ka marka sayska ilaali mid kale mashruuca la maal gashanayo inuu yahay mashruuc faa'iideynta leeg soo celin kara daily ama monthly ah faa'iideynta leeg soo celin kara isana waa iska soo hubin kartaa marka ku qaraacdid ayuu maal gashan kartaa qodob kale wuxuu leeyahay documentation-ka ay diyaariyeen ama u diyaarsan ay ku sharaxayaan shaqada ay qabtaan ama vision-kooda mustaqbalka marka shirkad kasta waxa jirta documentation ay diyaariyaan ama PowerPoint ay diyaarsadeen oo si fiican u diyaariyeen oo ay ku sharaxayaan halka ay ka soo unkameen fikradooda ganacsiga ku tacalluqdo iyo mustaqbalka waxay higsanayaan iyo waxyaabo badan ay ku qoran yihiin sidoo kale reports ay ku qoran yihiin faa'iidooyinka ay soo saaraan sida bilaa ah ama sanadla ah ama 3 biloodba ama 4 biloodba mar ay ku sameeyaan ay soo koobaan marka haddii aan documentigoodaasi aanu ku qancin oo waxaan ku qorani aanu wax magaranaysa mantiqa aanu ahayn iyadana waa iska ilaalinaysaa oo waxaad taxadar badan ka muujinaysaa haddii waxaan meesha ay ku qoreen qof baad tahay adiga laftaadu in badan wax baarayay marka waxaan haday real kula muuqan waayaan ama wax aqli gal ay kula muuqan waayaan percentage hoose ayaad siinaysaa inta marka laga yimaado marka inta qodob aad u eegtid waxaad sameynaysaa qodobadii percentage-yada aad mid walba gaar u siisay ayaa dib ugu noqonaysaa kadibna baaris ku sameynaysaa qodob kasta intii aad siisay percentage aad siisay kan haddii aad 60 oo kale siisay kan aad 50 siisay kan aad 90 aad siisay kan 20 aad siisay waxaas oo dhan aad soo gelinaysaa percentage-ka waad xisaabinaysaa si boqolleyba ayaad u qayminaysaa kadibna hal percentage ayaad ka soo saaraysaa percentage-ka guud ee aad soo saartay haddii uu u dhaxeeyo 80 to 100 shirkadda waa shirkad la isku halayn karo 100% oo lacagtaad gashin lacag kastana aad gashan kartid oo la isku halayn karo haddii uu 80 ka hooseeyo ilaa iyo 70 u dhaxeeyana waa shirkad la isku halayn karo laakiin aan lacag kasta aan la dhigan karin marka lacagaad ka maarmi kartid baa dhigan kartaa 70 ilaa 50 inta u dhaxaysa hadduu yahayna waa shirkad 50-50 oo tagina karta joogina karta marka lacag markasta aad ka maarantid ayuun baad maal gashan kartaa 50 wixii ka hooseeya lacagna ha iska dhigin hana ku kalsoonaan halka shirkadda ka tagayada marka intaas ku soo koobaynaa insha Allah qodobo kalena waan ka hadli doonaa shirkadaha islaamka ah aad baan idin salaamayaa wassalaamu calaykum